ayadoo lagu guda jiro tobankii dambe ee Rabadaanta ayaa dhaqdhaqaaq xoog leh laga dareemayaa gudaha magaalada Burco. Suuqa weyn ee magaalada Burco waxaa buux dhaafiyay kumanaan dad oo iyagu ka gadanaya dharkii ay ku idi lahaayeen. Si aan ugu koor galo dhaqdhaqaaqa ka socda suuqaasi waxaanu saaka booqanay suuqaasi waxaana ka socotay hawsha gadida agabka lagu talagalay ciida Rabadaan. Dadka ayaa ku mashquulsanaa iibsiga labiska dharka waxaana wajiyadooda ka muuqatay farxad ay ku soo dhaweynayaan Ciidul Fitriga. Suuqyadii aan booqanay waxaa kamid ahaa suuqa Hadwanaag oo isagu ahaa suuqa ugu saxmiga ballaaran waxaana aanu la kulanay qaar kamid ah ganacsatada suuqaasi waxayna noo sheegeen in bishani tahay bishii ugu mashquulka ballaarneed ee soo marta suuqani waxaana hadaladoodii kamid ahaa waxa jirta Ciidul Fitriga iyo ciidan ka soo socota waxa jirta farqo ma u dhaxeeya aad yaaba way ciidan aad baa lagu sameeyay dadka iyo baabulish waxa ka saadiyay kano soconaya waayo afarta imka waxa haray afar cisho 4 days baa haray 4 days ka aad ugu soo galo anagoo iibeyna dharka kaliya باستو ما شقيا عروة لجح وحنا فرحسنا وسلوين التيشيرت من فرس التيشيرت فرحسنا لا يدك بسوق سوق في عندك يبسنا سلوين شعور نور وتمركز كود ورسالة التيشيرت يرفرس أنت في السماء يقول هذا شو هذه يضرب كلامات هذه يضرب يبسني مريء أنت تشينا أنت بدك غلط بدك تشينا كتمارا شينا أنا والله يا الله عوضة ما كنا عرفت ما داوي جدا سي ماليزيا فرق وين ما نقولها يعني إنتي هراء أدوين كسر مشكو بسبين تذكر اسمنا نقول لك تذكرني ولا ترانا يكون عطوا لغة أنا والله ما قادني يوم الكورة الناس تذكر نغارات بكرسة تعيو أنا كيمو هذا عطوك مثلا فريق استيت دولار سكتشو أنا بصدق استديو الله magacay waxa weeye waxaan saleeyahay هاي كان واحد barakaysan bisha waa bil barakaysan waayo bisha waa bisha qoobi si kastaba haatee suuqa weyn ee magaalada Burco ayaa waqtigan ah mid mashquul ah ayadoo Ciidul Fitriga ay ka hadhay 4 cisho oo kaliya. Shaafici Maxamed Ibrahim, Aynaba News, magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer.